madaxweyne Shariif oo Kismaayo u socday Kismaayo muxuu ahayd riwaayad la soo daawanay meesha ma ahayn oolin waxa kamid ahayd ajendaha ugu weyn oo madaxweynaha iyo aniga iyo dad kale oo badan oo Soomaali muhiim u socdeen in hoggaanka iyo maamulka iyo institutionka Jubbaland jiro la dhageysto dareenka ay qabaan wixii laga daaway kara wixii kana oo la isku soo celiyo xayndaabkii dawladnimada lagu soo wada noqdo laakiin marna muraadka ma ahayn in muxuu ahaay la sii waxay in la sii kala tag la sii waxay boogihii hore intii la dhayi lahaay in kuwiina la danqiyo kuwa cusubna daqarro cusubna dadka la gaarsiiyo hadda la sii waxay waa nasiib darro maanta waxay taagan tahay marka maxaa danno ah waxyaabihii dawladdu ay ballan qaaday maxaa ka socday dawladdu intay ka baxday hoggaanka ugu sareeyo qoladan beesha caalamka maanta ay la shireenay u tageen magaalada London lagu shiray wax la yiraahdo comprehensive security arrangement lagu soo heshiiyay amniga dalkan qaabeyntiisa wax la yiraahdo lagu soo heshiiyay dad badan diidanay dad badan la xumeed dad badan la qaab darneed dad badan qabay sidan si ka fiican oo wax loo qaabeyn kara jiray laakiin iyadii xataa aawe tii markii la sameeyaan dheelan war waxaana ka dhimanaha lagu daro ama meeshaana waxoogaa yar ay ka waxaysan tahay saan laga yeelo iyadii lama hayo aawe dawladdu waxay noo sheegtay tubaha wax la yiraahdo ay sameysay tubta siyaasadda loo dhan yahay kamid ahayd siyaasadda yaa u dhan hogaamiyaasha ama madaxda dawladda iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeeya ma siyaasadda u dhan meel maamul goboleed doorasho laga galay wasiir ha la geeyo xagga mid kale laga rabaa leeyahay nin wasiir ayadana ha laga soo dhiso maxaan ku iraahdaa xagga guddi loo rabaa wiilasha xafiisyada ka shaqeeya muxuu ahay hal magacaabay ha loo diro siyaasadda aniga ma u arkay inay sidaas tahay dadkaasi sharaf ay leeyihiin